ciidamada BSF ee Puntland maxay tahay sababta ay uga qayb gali laayeen dagaalka ka socda buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland su'aashaas iyo eedeymo kale waxa ciidamada BSF duldhigay gudoomiyaha gobolka Mudug sidoo kalena u soo jeediyay eedeymo culus oo ay kamid yihiin in ay kaliya ciidamada BSF ku meereystaan magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale gaalkacyo ayna dhabka ahayn in ay dalkan difaacaan inta ay niisaydeen gudoomiyaha gobolka Mudug codkiisa wax ka codsanaya in ay YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhaxda muuqaalka laga saarto gambaleelkana furto sidoo kalena warbixinada aan caawidana wadaagayo wax kamid ah madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo markii ugu horeysay tan iyo intuu bilaabmaday dagaalka ka socda buraha calmiskaad u dhoofay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Itoobiya halkaas oo la sheegay in uga sii gudbi doono dalka Kenya halkaas oo ay ku kulmi doonaan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam isla markaasna ay isku sii raaci doonaan sida ay wararku sheegayaan dalka Imaaraadka Carabta oo Puntland iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ba siyaasad ahaan taageera wararkaas oo dhan intaan kula wadaagin wax ka codsanaya in ay YouTube-ka ku soo birto subscribe dhaxda muuqaalkana laga saarto sidoo kalena aragtidaada ku aadan ciidamada BSF maxay uga qayb gali laayeen dagaalka ka socda buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland waxa nagula wadaagtaa qaybta commentiga adiga aragtidaada ah aan isla daawano sida uu yiri gudoomiyaha gobolka Mudug maalintii shaqada laga joojiyay ciidamadaas uu madaxda ka yahay in diyaano wixii ka dambeeyay gaalkacyo qofna laguma dilin madaxna lama jabin waligoodna hal qof ay soo qabteen oo dadka madaxa jabiyay lama bahayaba kuwii la soo qabtayna waa daba socdaan taa macnaheedu maxay tahay in diyaano shaqadiibu ka joojiyay caalam haddii aan ku bilaabo gudoomiyaha gobolka Mudug oo markii labaad u soo jeediyay eedeymo culus ciidamada BSF ee Puntland ayaa sheegay in aysan ciidamada BSF ee Puntland qayb ka ahayn dagaalka calmiskaad ka socda ee lagu jiro kooxaha argagixisada ah ee Daesh waxa uu sheegay kaliya in ciidamada BSF ay ku meereystaan magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale gaalkacyo waxa uu sheegay in hadda ay gaalkacyo ka wadaan khalkhalgalin amni waxa uu sheegay in ciidamada BSF hadii ay xoog la jirroonayaan waa sida isagoo hadalka u dhigay ayna rabaan inay waxa weeye amaanka dadka reer Puntland ay sugaaniin looga baahan yahay buraha calmiskaad ee gobolka bari halkaas uu ka socdo dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada ah ee Daesh oo hadda ciribtirkoodii ama guntoodii ugu dambeysay halkaas lagu soo afjarayo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Mudug waxa uu ciidamada BSF ku eedeeyay inay la shaqeeyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka shaqeeya khalkhalgelinta iyo duminta maamul goboleedka Puntland waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Mudug in ciidamada BSF ay yihiin ciidamo waxa weeye hadda aan la aqoonsanayn waxa uu gudoomiyaha gobolka Mudug sheegay in ciidamada BSF si gaar ah kuwa degan gaalkacyo iyo sidoo kale magaalada Boosaaso oo uu agaasimaha u yahay Maxamuud Cusmaan Diyaano ay ka shaqeeyaan duminta iyo khalkhalgelinta maamulka Puntland waxa uu sheegay in Xasan Sheekh uu adeegsanayo ciidamadaasi dhaqaale iyo sidoo kalena fan ku bixiyo sidii ay u dumin lahaayeen maamul goboleedka Puntland dhanka kale gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa sheegay in madax jabiskii iyo dhibaatooyinkii ugu weynaa ee ka dhici jiray magaalada Gaalkacyo ay joogsameen kadib markii xilka laga qaaday Asad Ismaan Diyaano oo ahaa taliyihii ama andhahe agaasimihii ciidamadaas BSF kadib markii ay isqabteen ama khilaaf ka dhexdhashay isaga iyo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu sheegay in madax jabintii iyo dhibaatooyinkii ka dhici jiray magaalada Gaalkacyo ay joogsameen kadib markii Asad Diyaano laga qaaday xilkaas waxa uu sheegay in ciidamada BSF sidoo kalena looga baahan yahay hadda haday rabaan in shacabka reer Puntland ay wax u qabtaan amaankoodana sugaaniin in ay ka qayb galaan dagaalka ka socda buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland waa markii labaad uu gudoomiyaha gobolka bari aandhaha gudoomiyaha gobolka Mudug u soo jeedinayo ciidamo culus ciidamada BSF oo hadda awoodoodii hoos loo dhigay kadib markii ay khilaaf ka dhexdhashay agaasimaha ciidamadaas iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda Puntland
qodobkaas aragtidaada ka dhiibo oo dhanka commentiga noogu soo qor haddii aad halkan nala soo gaartay markale wax ka codsanaya inaad youtube-ka ku soo birto subscribe-kana dhahdo muuqaalkana leegi saarto haddii aan u gudubno madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa markii u horeysay tan iyo intuu socday dagaalka calmiska u ambabaxay dalka Itoobiya halkaas oo la sheegay in uu Itoobiya u tagay inuu u mahad celiyo madaxweynaha aan dhahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya kaasoo qayb weyn ka qaatay dagaalkii lagula jiray kooxda argagixisada ee Daesh waxayna ahayd Itoobiya meeshii ugu badnayd oo loo qaadayay dhaawacyada ciidamada difaaca Puntland ee ku soo dhaawacmayay buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland madaxweynaha Denina waxa la sheegay inuu halkaas u tagay inuu u mahad celiyo saraakiisha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo qayb weyn ka qaatay dagaalkii aan dhahay dhaawacyada iyo sidoo kale ciidamadii la geynayay dalka Itoobiya halkaas oo lagu dabiibayay isbitaalada waaweyn militariga Itoobiya dhanka kale wararku waxay sheegayaan in madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni uu u gudbi doono dalka Kenya halkaas oo kula kulmi doono Axmed Maxamed Islaam oo siyaasad ahaan ay isku dhaceen ama khilaaf badan ka dhaxeeyay madaxweyne Deni iyo sidoo kale Axmed Madoobe kadib markii madaxweynaha dowladda Puntland lagaga guuleystay doorashadii uu ku guuleystay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sheegayaa in hadda siyaasad ahaan ay xoogaa isku soo dhow yihiin kadib markii dowladda Imaaraadka Carabtu ay isku soo jiijiiday dana siyaasadeedna ay ka wadato waxayna wararku sheegayaan in maalmaha soo socda ay madaxweyne Deni iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam labadooduba ay u duuli doonaan dalka Imaaraadka Carabta halkaas oo ay ka dhici doonaan kulamo u dhaxeeya madaxda u sareysa dowladda Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale Axmed aan dhahay madaxweynaha dowladda Puntland arrimaha ugu waaweyn oo laga hadlayo waxa weeye doorashada 2026 iyo sidii booska looga saari lahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay siyaasad ahaan isku diidan yihiin ama aan dhahay isdiidan yihiin madaxda dalka Imaaraadka Carabta Axmed Madoobe iyo sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabtuna waxa la filayaa in madaxweynaha dowladda Puntland ay kala shaqeeyaan hankiisa siyaasadeed oo ah inuu ku guuleysto ama uu ku fariisto kursiga u sareeya dalka looga arrimiyo ee filla Soomaaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal warkeennii caawa haddii aad mar kale nagu cusub tahay wax ka codsanaya inaad youtube-ka ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalka la iga saarto kambalaalkana furto waa mahadsan